ku hadlaya codka guddiga taakulaynta iyo wacyigelinta ciidamada qaranka oo booliiska Soomaaliyeed ka mid yahay kana koow yahay waxaan u dirayaa bogaadin iyo hambalyo ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyagoo maanta u dabaaldegay annagoo joogna sanad guuradii 47aad ee ka soo wareegtay asaaskiisii labaad waxaan u leeyahay asaaskiisii labaad asaaskiisii hore wuxuu ahaa ciidanka 1884 laakiin 1943 baa loogu magacdaray asaaskiisii labaad kaasoo ah loogu magacdaray markii la asaasay SYL markii SYL la asaasay oo ahaa ururkii ama dhaqdhaqaaqii u horeeyay ee Soomaaliyeed ku salaysan siyaasad marka ciidanka booliisku markaa wuxuu ahaa indhihii iyo dhegihii dalka markaana waxay u gudbin jireen siyaasiyiinta SYL war macluumaadka iyagaa signalka hayay dowladdii maartay isticmaalka ahayd tii hore iyo tii dambeba ingiriiska markaa haysay waxaa qabsaday dalka marka iyagaa signalka haysay markaasay u wari u sibin jireen wararka hadda meesha wax maraya waxa lagu soo fooleeyahay waxa loo sharqoolayo waxa laga qabanayo يعني dadka signalka diri jiray waxa ka mid ah Allah yarxamahu naxariistay aryeygii Soomaaliyeed عبد الرزاق حاج حسين بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan ku sugannahay akademiyada booliska Soomaaliyeed ee Alkaahiye anagoo u dabaaldegayna 74 guurada ka soo wareegtay asaaskii ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaanu nahay guddiga taakulaynta iyo wacyigelinta ciidamada qaranka Soomaaliyeed waxaanu leenahay madax saraakiisha saraakiil dableyda carruurta iyo xaasaska booliska hambalyo ayaanu leenahay maanta runtii booliska Soomaaliyeed waxay soo bandhigeen firadooda tayadooda qalabkooda aqoontooda waxaa muuqatay in dalkan amnigiisa ay ku filnaan karaan amni darro dambana aysan dalkan ka dhici doonin boolisku wuxuu astaan u yahay amni meel boolis ka jiro amni baa ka jira meel aan boolis ka jirinna amni kama jiro waxay soo bandhigeen qalabkooda iyo aqoontooda oo ay ka mid tahay ayda booliska oo waxyaabaha qarxa iyo cadowga waxyaabaha maanta ummadda Soomaaliyeed kula dagaalama aqoon iyo khibrad ciidan oo la dagaalamayo oo soo saari doono waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed meel aad joogtaan haddaynaan ciidankeena garab istaagin haddaynaan inagu go'aan ku gaarin inaynu ka kaaftoono ku tiirsanaanta shisheeyaha dalkan inaga iskale meel gaari mayno dalka inaga iskale inaga unba amnigiisa sugi karna cid kale amnigiisa sugi karna lama arko inaga difaaci karna cidaan inaga hayno difaaci karna lama arko waxaan leeyahay mar labaad hambalyo ciidanka booliska Soomaaliyeed hambalyo ummadda Soomaaliyeed ku seexda kuna soo toosa niyadana ku dhista in dalkeen uu amni noqon doono waxa daliil u ah maanta bandhiga ay soo bandhigeen ciidanka booliska Soomaaliyeed 74 guurada ka soo wareegtay asaaska ciidanka booliska Soomaaliyeed